بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan dhageysan in la yaraa oo aad sahan la yiraahdo oo ka soo jeeda qabiilka Isaaq Somaliland oo wuxuu ka doodayaa sidee Somaliland loo oran karaa argagixisadii maalgelisaa ama argagixisadii taakulaysa ka doodaya ma ku dhaliilayo wanin maamul ahaan iyo qabiil ahaanba isdifaacaya laakiin waxaan rabaa aan sahan inaan dhowr su'aalood weydiiyo aadanow sidee iga dhaadhicinaysaa ama igu sheegaysaa inaysan Somaliland ama reer Sheekh Isaaq al-shabaabka aysan garab u ahayn ujeedkuna ahayn koonfurta Soomaaliya inaysan degin ama xasilooni helin dhowr su'aalood baan ku weydiinayaa kow waxaad iga jaahil bixisaa qof kasta oo Somaliland wax galkeeda ah abwaana ahaato ama aqoonyaana ahaato ama kuwooda diinta ku noqda suufiyaasha oo kale ama diinta ku adag xajirka ku ah oo kale waxay aadaan koonfurta si ay muqdisho ilaa iyo boosaaso aan dhaho ay u soo gubaan ama u qarxiyaan shacabka oo laayaan ama fala argagixis oo sameeyaan waxaad ii sheegtaa waxay ku kala duwan yihiin suuqa muqdisho iyo suuqa Hargeysa waxa kala duway ishe oo nagu qanay oo midkaasna gaala jihaadka looga doonto midkaana dialogue looga tago oo aan loo taaban taabal naga jaahilbe waxaadna oranaysaa Somaliland baa waxay leedahay sirdoon iyo mukhaabaraad ka awood badan kuwa gajiga kala Soomaaliyeed ka awood badan oo halkaan filka ma geysan kara miyay leedahay aadana waxa kale oo iga jahil bixisaa 2017 waxaan imid meesha la Hargeysa anoo markaas diyaarad la fly Dubai oo Hargeysa kaliya ka baxda duulimaadkeedu rabayna ka raaco waxaan degay hotel Samira garanaysaa waxay garanay hotelkaas waxaan kula kulmay subax 4 saac oo subaxnimo laba nin oo aniga adeeradaya labada saddexaad oo labaduba argagixisay yihiin oo waliba rag waaweyn oo saraakiil ah oo markaas dabaqadaha sare u jooga wadaan argagixisada shabaab anigu dawladda u shaqeynayay Puntland markaas aad baan u noolay oo waxaan mooday inaan gacan ku jiro hadaladii la yiri waxa kamid ahaa waxa aad ka shaqaysidii waxaan ka shaqeyno mabaadii bay noo kala tahay laakiin waxa isku naha ka weyn habaqi halkaan waa Hargeysa waxa la waxaad magaalada uga baahatid annaga shafka ku garaacayne masoo hana naga baqi halka ofis meesha waa Hargeysa waxa iga dhacaysa marka Hargeysa inay ku noolaadaan oo sida shafka igu garaacdaan oo la yiraahdo waxa la wixii dawladda xataa kala gala annaga ku joogna muqdisho iyo boosaasan aysan ku noolaan karin inta u dhaxaysa ay duurka kaga jiraan ayadana maxaa ku iskreeyay ii sheeg haddaan maamulku aysan baritaarayn argagixisada waxa kaloo aadan sahanow iga jahil bixisaa maxaa loo arki waayay xataa isku day ay isku dayayaan in amniga Somaliland wax yeelaan inay isku dayaan xataa isku day inay sameyn waayaan maxaa kalifay oo u arki weyne iyadoo la leeyahay fal argagixiso al-shabaab baa lagu qabtay Hargeysa ayagoo rabay inay qarax sameeyaan al-shabaab baa lagu qabtay Hargeysa ayagoo rabay inay wax dilaan al-shabaab baa lagu qabtay Hargeysa ayagoo diyaar ku leeyahay amniga wax u dhimaya maxaa noo arki weyne hadiiba ay jirto mukhaabaraad iyo sirdoon awood leh iyo ciidan awood leh hadii Somaliland leedahay waxa jira aadanow waxyaala aan la iska indhatiri karin salahan inaad argagixisada la shaqaysid ama diyaar ku leeyahay calaaqad la leedahay wax kugu ceebinayo aniga ayuub ahaan waxaan u arkaa dadaal aad dadkaaga u samaysan u arkaa xaqiiqiyan sababtoo ah Mareykan oo dunida waa awood badan argagixisada barbu taageera inta soo ka dhaxarka dantaada inaad ka dhaxaragtay ba ay muuqata waxaan garanaynaa sheekhiini weynaa aadan sunni miyuu ahaa maalintii u dambeysay
jilib buu ka soo hadlayay waxaan aragnaa ninkii la oran jiray abwaan gamaadiid abwaanada ugu waaweyn geyiga Soomaaliyeed ahaa jilib buu caaw ku sugan yahay waxaan aragnaa nageey waxaanu aragnaa ninka la yiraahdo ina godanayo rag la waa garanaynaa waxaanu garanaynaa ma tirin karno Ibrahim Afqaan baan garanaynaa ma tirin karno dhammaantood nin inta dhimatayna intay noolaayeen Hargeysa caruurtooda ama dumarkooda dhalayay sanad baa ilmahooda u dhaxeeyay Hargeysa iyo Burcayna joogay maantana kuwa meesha jooga dumarkoodii iyo xastoodii waxay tahay la Hargeysa naagahooduna sanad u dhalaa ii sheeg waxa ka dhaxeeya markaas ii sheeg suuqa Wuhan iyo Soobe waxay ku kala duwan yihiin ii sheeg oo midna loogu jihaadayo midna aan loo taabanayn doodda macquul way aqal gala si akademiya u doodaysa laakiin haddana qodobada aan rabno in la taabto bal loo taabo qodobadaas intaas qodob maxay tahay waxa kala duway shacabka ku wada nool suuqa Wuhan ee Hargeysa iyo suuqa diyaal ku raya Soobe oo midna in talay qaraxa loo gelinayay midna aan waliba loo fiirin labo haddii Somaliland mukhaabaraad leedahay ama ciidamo sirdoon ama ciidan military ama mid boolis ba ay leedahay iska qabta waxa maxaa noo arki weynay Somaliland oo fashirisay fal argagixiso ee ku soo socday Somaliland ku soo socday maxaa arki weyn labo saddex maxay tahay diyaal ku idmahayo madaxda iyo dadka ashaab dad caama noqota dad badan oo diyaal ku rayaan bulshada baabi'iya umada kale hadda sida koonfurta kale waxa ka mid noqda kuwa asqarxinayo kale kuwa caamada kuwa diinta khiyaaliga loo sheegay kuwa laga dhaadhiciyay waxaan jirin baas qarxiya laakiin Hargeysa markii la joogo dadka elite waan ku leeyahay waa aqoon-yahanka waa abwaanada waa dadka caanka ah ee elite aqoon-yahanada wax bartay ee aan dhihi karin aqoon-xuma waxa u geysay ayaa Hargeysa ka tago jilib taga maxay jihaadka Hargeysa uga bilaabi waayeen maxay isqarxinta Hargeysa uga bilaabi waayeen maxay alla ka cabsiga iyo diin jirta uga bilaabi waayeen taas ba anaga noo cadaynaysa in cilaaqaad ka dhaxeeyo cilaaqaadkaas ku salaysan nabdi isku salaysan yahay inta aanu aqoonsi helayno hanaga tajoojinina qaraxa iyo dibindaabyada koonfureed sababtoo ah haddii koonfureed fariisato oo sal hesho oo dawlad hesho Somaliland ictiraaf mayso adduunkuna wuxuu oranayaa orda dadkiina raaca haddii laakiin ay saa usii gubanayso waxaan ku doodi karnaa adduun kula doodi karnaa waddankan ummadaan israaci mayso waa gubanaysaa mana sugi karno in aqoonsado taasaan qabnaa isaa nooga jaxilbi adoo mahadsan kaga mahadcelinaya dadada maalgalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.